gudoomiyaha gobolka Banaadir marti sharafta kale ay ku jiraan kooxda horseed ee xulka qaranka ah kalamaan hiddo kooxda muusiga noo tumaysa fanaaniintii dhalinyarada ahayd oo noo haystay kulli waxaan ku salaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh allah ma hadle alxamdulillaah oo caawa halkan isugu keenay annagoo caafimaad qabna waxa uu gudoomiyaha ka tagay xiritaanka kalfadhigan siisaba dhaqan ahaan wuxuu ahaa xaflad kaftana oo dadku dee iska kifaaxaan sidaad aragteen oo muusiga hadda aan dhegaysanaynay siyaasiyiintu markay hadlayaan inaysan serious ahayn oo haddee liscaluul xaaranayo oo laisqalbi xaaranayo oo wax walba laga hadlaayo oo ah caadi iska dhig xoogaa yar yaan rabaa inaan ka hadlo kalfadhigii hadda 4 bilood aan soo dhaafnay wixii aan ka baranay iyo hadda meeshaan joogno iyo meesha aan higsanayno waxaan higsanaynaa sanadkan inuu ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo khayr qaba inuu ilaahay nooga dhigo sanad aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u dhis ah oo aan dalkeena dhisano inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreeyna oo aan dalkeena ka xoreeyno qolooyinkan shayaadiinta ah oo al-shabaabka ah markaan leeyahay dib u heshiisiin waa wax ugu muhiimsan oo ummadeena iyo shacabkeena ay naga sugayaan waxa ugu horeeyay dib u heshiisiin dhexdeena horta inay ka bilaabato waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxa loo baahan yahay dib u heshiisiintooda inaan bilaawno hadduu ilaahay yiraahdo waxaan hayaa warqad aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqeynta golaha shacabka sidii maxaan ku yiraahdaa dawlad goboleedyadii ay shaqada nooga joojiyeen annaga marka hadda dhexdeena weeye weliba waxaan u galaynaa gudaheena wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeena Soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isugu soo dhawaan lahaayeen sidii gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno hadduu ilaahay yiraahdo meesha ka soo bilaabatay marka 4 bilood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigan furmaayay oo aan ka hadlaynay inaan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qodbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyay yaa aqalka sare waxay yiraahdeen annaga golaha shacabka meel la fariisan meeno waxaan u yeeray gudoomiyaha maxamed mursal iyo maxaan ku yiraahdaa cabdi xaashi waa wada fariisiyay xaaladoodu waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fariistaan aysan wada fariisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas'uuliyiin nahay inaan fiirino dareenka shacabkeena haddaan wada jirno shacabkeena waa wada jirayaan haddii aan kala maqannahayna shacabkeena waa kala maqnanayaan markaasay ka soo bilaabatay xiriirka labada aqal marka in aan dib u heshiisiin u sameeyno hadduu ilaahay yiraahdo sanadkan waxay ku jirtaa barnaamijyadeena number 1 marka la fiiriyo kan ugu horeeya hadduu eebbe yiraahdo waa dhab waxaan ku tuhumaynay xoogaa markaas naftigeena waa markii dawlad goboleedyadu yiraahdeen waxaan ka joojinay wada shaqeynta dawladda dhexe oo xoogaa aan lahayn dawlad goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhaxeeyaan iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergeygii qaramada midoobay oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladaas kala taagnaanshaha ah oo aan u sharaxnay aan ku niri Soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeena intay rabtaan ugu qaadato ma ogolin inay cidna soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeelay waxaan ogahay intay rabta ha qaadato haddaan nahay Soomaali halka annagu nagu jiraa annagaana heshiinayna cid isku keen khasbaysa ma laha cid damaanad noo kala saxiixaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaan ugu kala saxiixay welina dhibkii weli qaar ka mid ah waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay
annaga dhexdeena inaan damaar isku noqonno oo dhexdeena aan ka heshinno cid walbana aan u sheegno annaga iskale hawlaheenna annaga heshiinayna annaga waala ah taasaa keentay ninkaas odaga markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka Soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri Muqdisho Soomaaliya maaha Soomaaliyana Muqdisho maaha arrintaas arrin aan ka caroonay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa runtii difference-ga farqiga u dhaxeeya dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada haddaba intaas waxaa ka dambeeya hadalkayaan kusoo gabagabeynahay taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda ay naga sugayso oo ah annaga in laga sugaayo inaan dadkeenna isu keenno koow annagaan iska bilaawno dhexdeenna wax alla wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeenna iska daaweyno iyadoo ay saas tahay yaa waxaa maqasheen wax la yidhahda mooshin oo qayb ka mid ah khilaafaadkan haysta mooshinkaasi wuxuu ahaa runtii mid xoogaa yar ummadda Soomaaliyeed argagax geliyay annagoo dhanaan runtii aan la yaabnay inkastoo hadda meel fiican aan taagannahay oo aan ka soo gudubnay oo sidii anigu aan sheegayo ahayd annaga dhexdeena inaan ka heshiinayno wax walbaba oo dhexdeena yaalla kaftanka waa tana marka kaftanka meeshaan gelaysaa gudoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay gudoomiyaha waa kaftameena waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yiri waa hor yaallaan mooshinka waxaan ku yiri see u egyahay wuxuu yiri bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogay waa ugu soo celiyo wuxuu yiri nambarkaas weey oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyo dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan yiri qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib uu fiiriyay wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhamaadka 2018 waxaan ku yiri marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirtee waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxa ka maqan dateski oo waxaan ku yiri see dateski qofku uu ku iloobi hadduu qofka saxiixay see ku iloobi waqtiga uu saxiixay waxaan ku yiraahday maxaa kale oo ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waayahay gudoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motive muxuu yahay maxaa laga danleeyahay waxaan ilaa waaba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabye ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waayahay waa dhabi qabye ninkeeda dhameystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 waayahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyo yiri waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dawladda inay dhamaystir ku sameeyaan wax alla wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku raahdaa kanaalkan sheegay ayaan dhaweyd oo wabiga ka soo fatahay in la furo beerta loo daayo waxay rabaan uu yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan uu yiri in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan uu yiri inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
madaxda ayaa baxaysa dadka kalena way ka dambeyn doonaan